Waxaanu ka hadlaynaa niyad-jabka ardayda ku dhaca waqtiga waxbarashada. Waxaa jira niyad-jabyo badan oo ardaydu ay la kulmaan waqtiga waxbarashada, laakiin loo baahan yahay inaad ogaatid oo aysan waxba ka beddelin adiga. Sidoo kale, waxaa loo baahan yahay ardaydu inay ogaadaan waxyaabaha ardayga kale niyad-jabka ku ah, si ay uga ilaaliyaan ardayga saaxiibkooda ah. Niyad-jabka koowaad wuxuu noqon karaa faham la'aanta ardayda. Faham la'aanta ardayda waxay ardayga ku beertaa niyad-jab aad u weyn oo aysan dareemi karin arday aad u badan. Waxaad la socotaan, haddii hab-dhaqanka ardayga ama hab-dhaqanka ardayda kale uusan wanaagsanayn, inuu niyad-jab ku abuurayo ardayga kale, waana mid u baahan in si gaar ah loo ogaado. Waxaa jira arday badan oo faham la'aan dartood waxbarashada ama iskoolka uga harta, ama iskoolka u beddela oo iskool kale u gasha. Ama waxaa jira arday badan oo faham la'aan darteed ay ku qabaan ardayda kale jaamacadda uga baxda oo jaamacad kale u gasha. Mararka qaar waxaa dhici karta inay ardaydu ugu yeeraan arday kale hadallo aan isaga uusan ku farxaynin. Niyad-jabka labaad ee ardaydu ay la kulmaan waxaa ka mid ah faham la'aanta ardayga dhanka maskaxda ah. Haddii ardaygu uu yahay mid aan faham badan lahayn, ama ardaygu hadduu fahmi waayo waxa uu baranayo, wuxuu kala kulmayaa niyad-jab aad u badan, sababtoo ah fahamkaaga wuxuu ku xiran yahay maadadaas ama waxa aad baranayso. Natiijada aad keeni doonto waqtiyada imtixaanka, iyo sida aad assignment-yada ama su'aalaha aad uga jawaabi doonto, ama waxyaabaha lagu diro adiga oo lagaa rabo. Marka waxaad la socotaa inay niyad-jab tahay faham la'aanta ardayga ku dhacdo, ama inuu fahmi waayo waxa uu baranayo. Sidoo kale, waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka feejignaatid wax aadan fahmi karin inaad barato ama aadan ku fiicnayn. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad marka hore aad doorato wax adigu aad fahmi karto, si aad hadhowdii aad ugu guulaysato. Niyad-jabka saddexaad ee ardaydu ay la kulmaan waa ku dhicitaanka imtixaanka. Ku dhicitaanka imtixaanku ardayda badankooda wuxuu ku beeraa niyad-jab aad u weyn, sababtoo ah maysan gaarin meeshii ay rabeen. Waxay dareemayaan inay guuldareysteen. Marka waa inaad la socotaa in imtixaanka ardaydu mararka ay ku dhacaan inay kala kulmaan niyad-jab. Sidoo kale, waxaa loo baahan yahay waalidku ama macallimiinta ama dadka waxbara ardayda inay si gaar ah u ogaadaan ardayda imtixaanka ku dhacda, inay siiyaan talooyin aad u wanaagsan si ay u beddelaan qaabka waxbarashadooda. Dadku iskuma jiraan. Waxaa jira arday badan oo waxbarashadooda ay khaldan tahay qaabka ay u bartaan, laakiin faham darro aysan ahayn, ama dad aan waxbarashada diiradda saarin oo u baahan wax dhiirrigeliya, ama dad u baahan in talooyin wanaagsan si ay isbeddel ay u sameeyaan la siiyo. Ama waxaa jira dad xanuuno qaba, ama xanuunada maskaxda ku dhaca qaba, ama carruurta qaarkood ay ku dhashaan oo aan faham badan aan heli karin si ay imtixaanaadka ay ugu guuleystaan. Marka waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan oo il gaar ah ay ku fiiriyaan ardayda, kuwa fahamka leh iyo kuwa aan fahamka lahayn, kuwa normalka iyo kuwa aan normalka ahayn. Inay macallimiinta ama dadka waxbara ardayda inay fahmi karaan. Waxaan filayaa muuqaalkan inaad ku ogaatay niyad-jabyada ay ardaydu la kulmaan waqtiga waxbarashada. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, ha naga ilaawin inaad nagu soo biirto oo aad subscribe noo saarto. Mahadsanid.